KNN. horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan dumarkuu ka tagay iyo daymada caruurta dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi dalka iyo dadka yeelkiisa samir allah ka siiye xilibaan boqorre qabuuraha isbitaal madiina lagu aasay madax badanna meesha waa ku baroorato markii hore aan amnigiisa xil iska saarin kiiskiisa waa soo baarayna ma dhaheen canaasiirtii dishay cadaaladda la hor keenayaa ma dhaheen war waana daba joogaa hay dhaheen war ana mayliyaa banaa wal dhimaday waan wal is aasay aas garan leylile aaska garan tiijingada gablahaas ka see ka bedelanya in sheegaba anigu waxaan la yaabanahay dad inta la laayo meel u muuqata la farfariisanayo oo bisaro loo soo noqonayo la laynayo laakiin isdabadidayso libax soo dhaxgalay xabad ka qabsadi oo kuwii kalena iska daaqay wiin dhaha masaarin miya adiga maya anigu weeraan aqaana oo in eriga dalaq u soo yira moorada hal riyaa ku aadanta rusku xisiyo 400 oo kalena jajabihaya yacnaan toog erig iska lahayn anigu waxaan maqli jiray xoolaha meeshii raq iyo waraabuhu raxan ka dhigo ka roora ayay gartaan riyaha ma ka liidana marka xoolaha aad sheegaysiin annaga ka liidana war anigu waa yaabanahay ismaaciil boqor oo 90 sano jiro oo wajigiisa ay sujuud madoobaysay maxaa loo dilay ariya mid sujuud ku taaliya mid 90 jira iyo mid 8 sano jira midna la dhaafi maayo waxa loo dilay boqorka dagaalkii 64 waa ka qayb galiyay Itoobiya iyo Soomaaliya dhaxmaray kii kale 77 waa ka qayb galiyay haddana beriga show ciidamada xaqoora hal la siiyo u taagnaayo dhihi jiriyay intaas nin yiraana dambiyaaba looga dhigayo saasa loo dilay ciidamadu ma og yihiin cidii u dooda in la dilayo war ayaga maalin kasta la dilaaye idaacadaha ka dhigaystaan war boqorka maalin limid isagoo masaajidka soo baxay ayuu koox saxafiyiin oo meel fadhida u yimid wuxuu yiri ma taqaaniin adeer ma yay dhaheen markaasuu wuxuu yiri sidaadii aqoon weydeen ayaadnaan u aqoon taariikhda dalkiina ala kulli xaal amba fiicnaado amba xumaade qof kasta waa dhimaha muga waxaan leeyahay bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqa maaya allow boqor budiisa u nuuri warnimayo dilalka magaalada muqdisho ayaa inta waa ku soo badanaysaa oo 3 iyo 2 la isku waarsanaya nimankii waxa waarsan jirayna duqayntu waa ku soo badanaysaa oo cirka looga soo dhacay ayadana toko biltoka Soomaan waxaan maqli jira ada Talyaaniga teege toka birtoko ma taqaan war toka biltoka la sheegaysan weeye xalaash gobolka shabeellada hoose shabaab badan oo meel tuuran aabalaaya cirka uga soo dhacda meel ay canshuurta dadka shacabka u qaadi jireen ayaa ayaga canshuur looga qaada waxaa hore loo yiri adaaja luntaana biyano dalacadan tartiib u fuul ariya taana nagu ma soo dhawaane waxa la yiri ma fiicna fiita ka buugto la falfaalaya fiidka show war ma haysiina Jubbaland doorashadii iyo musharaxiintii ayaa ka bilowday afayeenkii hore ee Jubbaland Cabdinaasir Seeraar tadaba jeexyo badan isku wareejiyay ayuu yiri musharaxana kursiga Sayid Sheekh Ahmed Dhuxul uu ku fadhiyo ayaan rabaa buu odagiina hadeenu ciidan diyaarsan la sheegay may dheega jiray maanya gali imin galiba malakamood man kama mooga dheega jiri deekay amle isku wareeji i guri dhagahan la isku wareejiba nabad in nolol meel ku qudbooy doontanay war ma haysiine wiilkii doorashada Puntland madaxweynenimada ku sigtay General Asadiano muqdisho yimid baa leeyahay isagoo xil loo magacaabi rabo marka waxaan u malaynayaa taliya ciidan hadii laga dhigo in bur iyo biyo loo kala bixi doono aryaadaha waxaan maqlay ra'iisul wasaare Khayre inuu Jubbaland ku sii jeedo Muuse Biixina waa kii dhahaya ayaamahan wada waramaan diyaar u ahay filla Soomaaliyana waa tii tiri wada shaqaynta Muuse waa soo dhaweeyayna odagii xaafahayna waa kii yiri xabadka fulimayso ballankiiba waa nooga baxeen muga dadka kale hadii la qanciyo odayga naftiisa ma la qanciyo ma sawaan la rabin haday Muuse Biixi runtahay inuu farmaajoobay Ahmed Dhuxulna qayraysan yahay lana heshiinayo wuxuu xaflad boodboodayaa dekad la'aanteeda
dawladnimo ma diidana anigu saan isleeyahay maxaa odaga loo sirahayaa maada loo sheego intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warwar ma haysaana beledweyne banaanbax weyn baa ka dhacay dadkuna dabageedaan ka caawinaynaa bay dhaheen macaawinadii la keenana meelay cirib iyo jaandhigta lama ogaa la yidhi war waxaa la yidhi danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo oy daawo dhigataa ummadi dawlad noqotaa intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin aad leedihiin ummadda maa dagaashan adeegay rabtaahe nafalaa dagaal ku xiraysatoon cidna aan cisayn cidna caawimayn oo camal islaan ka carrawdayoo bele loo carbiyey cagta saartayoo caqligiiyo cilmiga la collaysanay awa daranida allow eebbaa igu ogo adaa ku ciraysatid colaad u dhex joogtay saan colaad u dhex joognay innagu cirdalool cimrigeennu ahaaye hadda yaan nacasuumay war shahaada maad ka wadataa war afkooba shalgaadan olaadlay boo sheegasan aakhirilisinkueriya aadan isaaqow baydhow wax wara kama haysid miya wariya nabadii nabdaayi ka jarta wadahadhawa magaalada sharmashiiqa waddanka masar madaxweynayaashii jaamacadda arabta oo farmaajo uu ka mid yahay iyo madaxweynayaashii yurub baa ku kulmaya waxaana looga hadlayaa baa la yidhi dhibaatada ka jirta dunida islaamka yaa madaxweynahaan yowal jaamacad kama soo bixin miya miiska keen qabsaday wariya farmaajo madano maraykan wanaaraasan madano arabu wanaaraasan antaniin waddankasan warwar ma haysaana madaxweynaha masar ardogaana caayoo yidhi waa doqon aan waxba kala ogeyn waryaa dhibaatada ka jirta dunida islaamka shalayaa la sharaxay jahli haddii fakhri lagu daro dembiilaa ka dhasha jahli haddii maal lagu darana fasaad baa ka dhasha jahli haddii maxtinimo lagu darana kelitalis baa ka dhasha jahli haddii diin lagu darana argagixisaa ka dhalata aryaa yurubna xaa ka quseeya dunida islaamka ma dhibkay ka sii joojiya mise dhibay ku badiheen horta urdugan dadka xawu caaya leeskama dhaxsho asagana war ma haytan madawiinagii waqooyiga kuuri kii jeegada dheer lahaa jiim kuunjaangalalafleeraay usii walaalisa tareenha korenga leeri dalka vietnama dalagha eren ana fi ingiriisiga magorada is this Donald Trump eren madil infisrin Donald Trump aawe leeyinga leeri war booliiska Malaysia kaba katarban ay qabteen arwaaba yaabiye booliiska shaqo la'aan badana ana kamana yimaadaan qaraxa abtay aanta loo buubuubahay naga qaba lahaayeen aryaa boolis islaameed ma wax ku taraadi hadii kuwaaga xabad ku qaba waa in adiguna aadan shilin u taagaynin war boolisku kiidana hindiya nagadeeno madi wala diyanka dambe kooyan big bog war booliska maxaa ku eedeysaan qof naftiisa dilay ma ka hortay kartaa u ka cili kartaa naftiisa war haddii run la sheego magaalada in la baaro ayaana wadooyinka dhan laga xiri lahaa waryaa jawaanadan ciidda meel kasta lagu hoos jira ma magaalada lagu wareejiyo war lamadun shabaab isla shaqeeyaan ma ishal wareejiyo ho abni la fadaw war markaa magaalada soo galeydeen damiin maxaa idin weydii waay horta dadka beledka jooga ma la kala yaqaan base waa uu lees dhex dhooban yaa ku yaqaan adiga anigu waxaan ka shakiyaa ciyaalkan damiin la'aanta iska dhaldhalanaya taga Allah idin aruuriye